kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baaqiyarta inala socotay ku soo dhawaada barnaamijkii Howraarsan oo aad daawanaysaan xilligan isla markaana si toos ah idinkaga imaanaya telefishinka RTN studio-ha dhexe magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. halkan barnaamijka waxa idinka soo dawin doona hadii guul la saamaxo Cabdi Axmed Cabdullaahi iyo anigoo Cabdilcasiis Barrow qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah dawladda Kenya oo ama hor leh weydiisanaysa bangiga adduunka taasi oo dad fara badan oo Kenyan ay isweydiinayaan xilli ligliga loo haysta Kenya deymo hore ay uga soo qaadatay waddanka China. taasina dad fara badan oo Kenyan ayaa isweydiinaya halka dhaqaalahaasi loo wado iyo meesha dawladda Kenya sababa xilligan keenay inay codsato xillitii hore wali la isweydiinayo sidii loo bixin lahaa. wargeyska The Standard ayuu daawadaal wuxuu soo qorayaa in nin intuu xaaskiisa dilay ayuu isagana isdildilay marka kulay warbixinta ayaa waxay ku soo qaadanaysaa dilalka faraha batay oo lamaanaha ma dhaxmaro ama ka dhaxdhaco. watahay kulay sheekadaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan oo aan ku eegi doono isla markaana aanu eegi doono waxyaabaha wargeysyadu ay sida goonida ah uga qoreen dadka iyaga dadka dila isna dila talow ma xanuun madaxa ah baa mase waa isku buuq dadku ku dhashay. qodobkaas waa daawan doontaan laakiin qodobada kale waxaa ka mid ah xisbiga mucaaradka ee dalka Kenya ee ODM oo mas'uuliyiintiisu ay doonayaan in aftida la doonayo in loo qaado waddankan lagu sameeyo maalgelin xilli dad fara badan ay isweydiinayaan aftidaasi xilliga la qabanayo iyo waliba waxyaabaha ku soo beegaya xilligan. qaar ka mid ah siyaasiyiintana arinta aftida ayayba shaki kelinayaan aragtidooda iyo siday u arkaan. barro waxaad moodaa wargeysyada maanta inay xitaa soo hadal qaadayaan haddii maaragtay wasiir Rotich uu weel maran la hortagi rabo bangiga adduunka oo 75 bilyan loo baahan yahay in lagu kabo miisaaniyadda dalka xagee laga heli doona lacag afti lagu qaadayo. isla markaasna daawadayaal wargeyska The Standard ayaa wuxuu soo qorayaa in hadartan la soo cadeeyay in shir uu madaxweynaha dalkan la yeeshay ganacsata maaragtay yaryar oo Nairobi ka soo jeedo taasi oo sabab u noqotay inuu amar ku bixiyo konteenarada lagu hayo Embakasi in muddo 3 toddobaad gudahooda lagu soo siiyo lagu fasaxo. qodobada kale ee barnaamijka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada booliiska ee waddanka Kenya ee loo yaqaan ciidamada kaydka ayaa la codsanayaa in la diiwaan geliyo dabka ama hubka ay wataan oo ay ku howlgalaan. waa inoo goordhow qodobadaasi kuwa kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan. Cukaashe Sheekh Maxamed ayaa isku soo dabariday waxaa farsamayn doona injineer Mahdi Yuusuf waxaana si wada jira halkan idinkala socodsiin doona Barrow iyo Cabdi Axmed. dhinaca kaamirooyinka waxaa gacan inaga siinaya Safari iyo waliba Paul u diyaar garooba barnaamijka. maqlarag suuban markale saaxiibadayna daawanayo halkani waa telefishinka RTN studio-ha dhexe ee magaalada Nairobi. waxaa si toos ah u daawanaysaan barnaamijka Howraarsan oo xilligan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi studio-ha dhexe halkan aynu ku leenahay. qodobada ugu horeeya ayaan guda galayaa faaqidaada wargeysyada Kenya. dawladda Kenya in dhaweydba waxaa ligliga loo haystay deymo fara badan oo ay ka soo qaadatay waddankaasi Shiinaha taasi oo maalgelin loogu sameeyay wadooyin waaweyn iyo waliba wadada ama xididka tareenada ee casriga ee loo yaqaan SGR ee xiriiriya Nairobi iyo Mombasa oo ah magaalooyinka caasimadda iyo ku xigeenka caasimadda. arintani dad fara badan ayaa isweydiinaya iyadoo baraha bulshadana waayidii ugu dambeysay si weyn loogu soo hadal qaadaya lacagaha Kenya ee deynta lagu leeyahay. laakiin dawladda oo maalmihii ugu dambeysay la daaladhacaysay deymahaasi iyo amaahda Shiinaha ay ka soo qaadatay. mar kale wargeyska The Daily Nation ay ka soo baxa dalkan ahna wargeysyada loogu akhriska badan yahay Kenya ahna kuwa facaad ahaan marka la tiriyo taariikh ahaan ugu fog ee soo baxay dalkan muddada dheer ayaa waxa uu soo qoray dawladdu waxa ay doonaysaa mar kale in ay amaah weydiisato banka adduunka. lacagahaasi ayaa noqon doona baa la leeyahay xadiga deymaha lagu leeyahay dalka Kenya hadii
bangiga uu ka aqbala Kenya isla markaasi lacagtani la soo qaato laakiin su'aalaha la isweydiinaya ayaa waxay tahay Kenya lacagtan amaahda ah ay iminka qaadanayso maxay ugu tala gashay Cabdi Axmed ayaa ila jooga oo ila eegaya qodobkan wargeyska saaka uu wax ka qoray isla markaana si weyn bulshada ay u hadalhayaan Cabdi maxaa qasbaya la leeyahay Kenya markalena World Bank ay weydiisato deyn ama ba xilligan ay naawileysa inay amaah cusub soo qaadato lacag la'aan wargeyska hadii aad raacdid barro waxa weeyaan 10 sano ka hor ayaa ugu dambeysay Kenya inay deyn weydiisato banka adduunka xilligu waxay ku soo maaragtay maqaalkan ama maaragtay warbixintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli maaragtay aad moodid in dalka ama dawladda maaragtay culeys fara badan xagga maaragtay fulinta mashaariicda maaragtay waaweyn iyo maaragtay sidii deemo looga heli lahaa meelaha qaar barro maalin dhaweed ay ahayd mar maaragtay madaxweynaha iyo madaxa mucaaradka Shiina ku maqnaayeen inkastoo hadii maaragtay official ahaan hadaan raacno ama si rasmi ahaan dawladda ayaa waxay tiraahday maysan ahayn agendarka socdaalka madaxweynaha iyo saaxiibkiis Raila inuu ku saabsanay SGR ka Mombasa iyo Nairobi iyo Kisumu laakiin waxa weeyaan markii dambe ayaa hadana waxa la yiri dabcan wada hadal ayaa maaragtay socda marka qaabkii ama shuruudihii ay rabeen inaan fulino hadaan nahay dawladda Kenya ayaan wali ku guda jirnaa marka it's not all lost yani la wili lama rajabeelin ayadoo saas ayaa hadana wararka ay waxay sheegayeen markii ay soo laabteen waatii hadana maaragtay wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi ay wadata Monica Juma Mareykanka aadeen maaragtay si maaragtay loo soo gogol dhigo ama maaragtay loo soo gogol dhigo arrin ku saabsan in deyma maaragtay dheeraad ama lagu dhisi lahaa SGR kan xadiidkaas cusub lagu dhigi lahaa tareenka casriga markaas hadana waxaad moodaa maaragtay ilaa tan iyo daraad ayaa waxa aad loo hadalhayay in maaragtay hadda koor company Mareykan oo maaragtay qorsheynayay in uu dhiso highway caalami oo u dhaxeyn doono Mombasa iyo Nairobi oo ilaa maaragtay lacag 300 bilyan oo shilinka Kenya dheerarka wax ka intaas ilaa 400 kilometer ayay noqon doontaa oo lixlan buu lahaa marka waxaad moodaa hadana shirkadii inay ka gaabsatay waayo waxa la isleeyahay Kenya ma u qalantaa in maaragtay deymahan faraha badan hadartan maaragtay dhabarka laga saaro marka tan ayaa hadartan soo baxday oo 75 bilyan marka sida wargeyska uu leeyahay waliba farwa weyn oo saaka ku soo qoray qaybtiisa hore waxyaabaha ugu badan ee lacagtaasi Kenya ay naawileysan ku qabato marka loo yimaado dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismooyinka xitaa balle ma horta lacagtan hadda Kenya ay u baahan tahay oo maaragtay sida wargeyskan uu qoray oo 75 bilyan waxa weeyaan sida lagu kabi lahaa miisaaniyadda waxa xusid mudan maaragtay maanta waxa dib loo kabayaa miisaaniyadda Kenya miisaaniyad sanadeedka soo gartama waxaad ogaataa barrow bisha June foden uu soo haysaa min 3-4 maalmood meelahaas ayaa ka dhiman inta badanna maaragtay traditionally ama si maaragtay caadi ahaan labada toddobaad ugu hore bisha June ayaa waxaad moodaa maaragtay wadamada East Africa Kenya Uganda Tanzania ayay maaragtay miisaaniyadooda u soo bandhigaan baarlamaanka ama dadweynaha dalka marka waxa laga yaabaa maaragtay xisaab ahaan xitaa hadii loo ogolaado maaragtay deyntaas loo ogolaado in maaragtay lagu soo kabi karo lagu soo reportka lagu soo dhaxdari karo laakiin inkastoo aan lacagti wali soo gaarin marka dadka qaar oo maaragtay dhaqaalaha indheeyo xitaa baraha bulshada inkastoo wargeyska uu ku soo qaadanin ayaa waxa laga yaabaa in lacagaheen aragtaan miyaha 10 sano idinka ayaa naga maqneedeen bal buugaagteena noo keena maxaa horumar oo sameeysan maxaa horumar oo sameeysan laga yaabaa in la weydiiyo Shiinaha muxuu deyn idinku leeyahay marka waxa weeyaan waa arrin aad adana banka adduunka Shiinaha waa la ogyahay IMF ta meesha ay kala taagan yihiin dhinaca kale markii la eego dhawaan wargeysida wadanka Kenya waxay qoreen oo halkan ka baahinay in dawladda Kenya 3 bilood ay ugu soo horeyso loo baahan yahay waaxda canshuur aruurinta dalkan KRA loo yaqaan 500 milyan oo shilinka dalkan Kenya inay 500 bilyan oo shilinka Kenya inay soo aruuriso si fiican
iyadoo tii ay taagan tahay tanina ay soo baxayso wasiir Henry Rotich wasiirka maaliyadda iyo dalkan Kenya maxaa hor yaala asiga culays intee buu aqaba aad u culus ayaa hor yaala wasiirka hadii aad fiirisid sababta muuta inta badan barro waxaad moodaa maaragtay dadweynaha afkaartay qabaan iyo sida wax u muujinayeen iyo sida wax u soo bandhigayeen waxay leeyihiin qaarkood xitaa intooda badan ilaa wasiirkana maaliyadda kaliya waxaa magaciisa la maqlaa shida lacageed markuu jiro ama maaragtay fadeexad markay jirto iyo ama marka maaragtay mar oo maaragtay waaxda dambi baarista ay dhowr maalmood maaragtay inta 300 oo su'aalo la wey yani waxaan la anahay wasiirkeena waa sida dadka qaar ay qabaan waxaan la anahay wasiirkeena maaliyadda oo xitaa lacaga intaas oo dheeri ayaa la helay halkaasan yani waxa weeye mar alaale markuu isaga afkiisa furto dib iyo shilin weeyaan oo wax kale ma laha watahay warbixinta wargeyska uu ku soo hadal qaaday lacagtan xadiga inta la eg ee miisaaniyadda Kenya ay doonayso inay ku kabto hadii World Bank ay ka soo qaadato aad iyo aad culayska dhaqaale iyo amaahda Kenya lagu leeyahay ee fuulayso waliba iyadoo la oranayay warbixina qaar soo baxay madaxweyne Uhuru Kenyatta markuu xafiiska ka baxo ilaa 7 bilyan oo shilinka Kenya iyadoo Kenya lagu leeyahay ka tagaya baa la oranayay tan culays dhaqaale intee lag bay yeelan doontaa baa la leeyahay horta barrow inta badan horta waxa weeyaan waxa fiican maaragtay shay walba dhinaca positive ka in laga fiiriyo dabcan horta waa wasiir maaragtay Rotich kaligiis ma aha oo maaragtay intaas oo maaragtay la taliye ayuu leeyahay oo la socdo dhaqaalaha adduunka la socdo dhaqaalaha dalka la socdo maaragtay qaynuunka iyo sharciga u yaalo oo maaragtay deymaha lagu soo qaadan karo marka kulay xitaa go'aankan haduu gaaray ama maaragtay uu rabo weel maran inuu World Bank la aado kulay uu og yahay maaragtay in lacagtan uu soo heli doono soo gartama ma aha hal subax intuu soo kacay uu yiraahday waxaan u baahnaa laakiin waxaad moodaa maaragtay in waxyaabaha hadirtan soo baxay bilmathala fiiri wargeyskan the standard madaxweynaha ayaa wuxuu la kulmay ama shir la yeeshay ganacsato oo muddo dheer container uga xidhnaa maaragtay Embakasi waxa jira meel terminal oo container la dhigo ilaa ma 1000 container ayaa lagu qiyaasay oo badeecada ay ku jiraan madaxweynaha jumcihii la soo dhaafay ayaa wargeysyada sidii dhigeen inta u dhaxaysa 9 saac iyo 12 saac isagoo xitaa mas'uulka la joogay xirmay aniga iyo muwaadiniintan Kenyaanka oo dhiban soo gala albaabku xirta markaas uu yahay dhibkina sheegta maxaynu ka niqaashnaa maanta marka taasi ayaa waxay keentay in waxyaabo badan horta ay soo baxaan madaxweynaha intuu meesha ka baxay toos Embakasi buu aaday wuu fiiriyay xaaladda sidee ahayd mudcabaar buu meesha joogay markaas wuxuu yiri waxaan amar ku bixinayaa sida sharciga uu waafaqsan yahay 3 toddobaad gudaheeda in containerada dhan maaragtay la fasaxo marka containerada ayaa qaar wargeyskan sidoo soo dhigayo iyo wargeysyada maanta sidii dhigeen ayaa qaar waxa weeyaan Abdi Barrow aan iraahdo maaragtay Paul Safari ayaa waxa laga yaabaa Dubai inaan wax ka soo gadan koobde markaas adigu waxa laba cambur baagsata kana spare part container baa noo saaray marka containerkii markii aan alaabta ku aruursano ayaa hadana si maaragtay khiyaano ah waxa lagu qorayaa containerkan Kigali Rwanda ay u socdaa marka portka Mombasa markuu soo maro waa transit bimaana canshuur laga ma bixinayo marka taasi maxay keenaysaa waxay keenaysaa waaxda canshuuraha inay lacag badan dul saaraan may inay lacag badan ka dhumaan sababtoo ma laha muuta yani awoodii canshuur meesha ma jirto sababta containerkan ma aha mid Kenya loogu talagalay aad waa sida declaration forms ka ay sheegayeen Kigali baa loo marka waxa isweydiin karta intaas oo container ayaa laga yaabaa saas marka hadii maaragtay la leeyahay 3 bilood gudaheeda waa in 500 oo bilyan oo shilinka Kenya waaxda canshuuraha ay soo ira lacagahaas oo iyagana hadana lagu kabi doono miisaaniyada sanadka isla markaasna Henry Rotich oo deyn marka waxaad moodaa maaragtay in culays aad iyo aad uu jiro waa tahay akhyaarteena daawanaysa wali waxaad la socotaan barnaamijka Horaarsan oo aan si toos ah ugu faaqidi doono wargeysyada Kenya iyo waxyaabaha ugu waaweyn saaka ay qorayaan oo sheekooyin kala duwan oo xiiso leh ay kamid yihiin
way noo soo socdaan qodobo kale oo xiiso leh oo ku saabsan gobolka iyo guud ahaanba caalamka si yeeshaan dib idinkugu celiya Mahdi iyo farsamada. وتهاي صاحب بيال أركتي وناكسن مركلة ولو حلا سعطان هورارسن قضبضة كلا ورجيسة قريان هديان قدا قلا ورجيس كا The Daily Nation وحوصو هذا القاضية دلك كينيا أيا لفليا إن لقرية أفتي سيدا قار كميدا بحساب السياسة إيا سياسيين قاره أي دونيا أفتيدان أيا وجددي ستهاي سيدا لشيغي إسبدل معمول إيا حنان كدمان تدولة ويوشقيسو إن متكدوان لوردقو taasi waxay muujinaysaa in qaar ka mid ah siyaasiyiintu ay aragtidaasi si weyn uga hor yimaadeen isla markaana ay sheegeen in maanta aan loo baahnayn in afti Kenyaanka dib loogu celiyo isbedel maamul lagu sameeyo. Aftidan ayaa waxaa xisaabta horkacaysa ka mid ah xisbiga taariikh ahaan ugu dhaqdhaqaaqa badan dhinaca mucaaradka ee ODM lagu magacaabay oo hogaamiyo Raila Amolo Odinga oo isaga ah ninka siyaasiyiinta waddanka Kenya marka loo yimaado ugu cadcad dhinaca siyaasadda mucaaradka waayidii dambana gacan saar siyaasadeed la lahaa dawladda Kenya. Xisbigiisa ayaa hadda soo jeediyay in la sameeyo in dhaqaale loo gooniya loo sameeyo ama loo qoondeeyo aftidaasi la doonayo in Kenya iminka laga hirgeliyo taasi iyo waliba xilli qaar ka mid ah siyaasiyiintu ay ka soo horjeedeen aftidan ayaa ODM ay dalbanaysaa in la maalgeliyo xilli qaar ka mid ah أحسابتا سياسة gaar ahaan xisbul xaakimka dalkan ee loo yaqaano Jubilee siyaasiyiintiisu ay ku kala aragti duwan yihiin hanaanka dhaqdhaqaaqa dawladda tan iyo wixii ka dambeeyay markii gacan saarka siyaasadeed uu ka dhacay daarta Harambee House ee dalkan Kenya isla markaana hoosta loogu dhigay dhaqdhaqaaqii iyo kala aragti duwanaashihii mucaaradka iyo muxaafadka dalkan tan iyo wixii ka dambeeyay doorashooyinkii guud ee dalkan ka dhacay. haddaba aftidan ODM ay doonayso in la maalgeliyo maxay tahay ujeedada ay ODM-na xilliga ruulo orodka ugu jirto in dalka aftidaasi laga qabto oo dhaqdhaqaaqooda la xoojiyo maxay iminka ugu soo aadiyeen Jubilee gaar ahaan garabka la aragtida ah madaxweyne ku-xigeenka waddankan iyana sidee bay u arkaan Cabdi Axmed horta barro waxa weeyaan 3 bilood ka hor ayay ahayd mar uu Raila Amolo Odinga ku dhawaaqay uu yiri sanadkan waxa dalkan ka dhici doona wax uu ku tilmaamay political tsunami siyaasadeed wuxuu yiri isbedel weyn ayaa soo socda qofka isbedelka diyaar u ahaan isbedelkaas ayaa bedeli doona hadalkaas si fiican u dhageyso qofka aan diyaar isbedelkaas u ahaan isbedelkaas ayaa isagana bedeli doona بمعنى يعني ما ركتي وح على لوحنا وقادته مركز تاسي محا لو فسري أرجع وحا لو فسري ما أنت هدي ورجيس كان نسوق هذا The Daily Nation أيه وحوليه هاي ولقى يقالها يسن كل عليين أما يسن ما ركتي لنع كامرين إن ما يعني هذا لذا السياسة كوساب سن نحل كسياسة وكان عدونا دلكني سنة مركتها يلا بكون يلا بيلا باتنكي وحاجرة وحيابة لازم ku ah in bedelaad lagu sameeyo ka hor intaysan dhicin doorashada 2022ka haddii aan go'aan ka gaari weyno arrimahaas xaaladdu way u sii xumaan doontaa waa hadalada Raila Amolo Odinga laakiin marka hadalkan ayaa wuxuu ka wadaa macnihiisa marka loo yimaado Raila Odinga markii uu la heshiiyay madaxweynaha dalkani gacan qaadkii siyaasadeed gacan qaadkii ayaa waxa la abaabulay waxa la yiraahdo maaragtay building bridges initiative yani sidii maaragtay wanaag iyo maaragtay midnimo loo abuuri lahaa oo la iskugu imaan lahaa shacabka iyo aragtida siyaasiyiinta Kenyaanka waa mid marka waxa kamid ah in laga hadlo dhibkii ka dhashay natiijooyinkii doorashada la isku khilaafay sanadii 2017 arrimihii dhacay sideen wax uga bedeli karnaa
intay sawili doorashada soo socoto dhicin maxaynu ka baranoo cashira doorashada la soo barano marka waxaad moodaa nuxurka Raila Odinga uu leeyahay waa intaas kaliya yani ila ma isbedel hadii aan lagu sameeynin ama hadii aan laga wada xaajoonin anako adeegsanayno constitution process ama maaragtay process dasturi ah 2022 ma gali karno watahay laakiin sida la socotay Jubilee dadka qaar waxay u kala bixinayaan magacyo kala duwan waayidii ugu dambeysay la muujinaya taanka wax la yiraahdo iyo arrimahaas hadda ka dhawaajisay aragtidan waxaad moodaa Jubilee ahaan inaanay isku waafaqsanayn marka loo yimaado garabka madaxweyne ku xigeen ka raacsanay la aragtida iyo garabka madaxweynaha lagu xaqliyay inay la safan yihiin waxaad moodaa in buundooyin siyaasadeed oo adag ay u dhaxayaan bal arrintan Jubilee saameyn ma ku yeelanaysaa marka loo yimaado aftidan la leeyahay Kenya la gelinaya horta kule waxaad moodaa ma aragtay in Jubilee dhaxdeeda qaar kamid ah ama inaysan raali ka ahayn waxaan ma aragtay aftida la sheegayo ilaa hadartana muutahay kule aftida lama sheegin maxaa afti lagu qaadi doonaa su'aasha maxay noqon doontaa aftidan maxay tahay dadka la weydiiyay su'aasha dadka loo soo bandhigi doono maxay tahay su'aal gartamaha marka waxaad moodaa hadartana in xisbiga ODM waa sidoo hadalka u dhigay maaragtay wargeysku Sifuna oo ah xogaha guud ayaa wuxuu leeyahay waxa la soo gaaray waqti iyadoo maaragtay ay soo dhowdahay budgetka dalka in lagu dhawaaqo waa in waxa weeyaan waxaysan huraynin in lacagaha loo qondayn doono in aftida lagu sameeyo kole lacag yarna ma aha waa billions of shillings waa in lagu soo daro miisaaniyada dalka waxaad moodaa maaragtay waa markii ugu horeysay moota inta badan siyaasadda waxa la dhahaa waa perception yani sida saa wax u aragtida waana markii ugu horeysay nin ka baxsan Raila Odinga oo mas'uul ka ah xisbiga ODM uu ka hadlo arrinta aftida iyo sidii maaragtay loo qarash gelin lahaa watahay ilaa hadda aftidan markii la soo hadal qaado laba meel baa muuqanayso ODM oo gooni taagan iyo Jubilee laba aragti kala aaminsan laakiin ahsaab kala jirtay the Third Way Alliance Amani National Congress Wiper ahsaabta kala xagee bay jiraan marka arrinta laga kale inta badan waxaad moodaa maaragtay in codkooda la leeqay laakiin haddii aad fiirisid Third Way Alliance punguza mizigo ayay maaragtay yani culayska hana laga yareeyo dabcan isaga culaysku ka hadlayo waxa weeyaan tirada xildhibaanada waa in maaragtay la dhimo tirada senatarada waa in la dhimo tirada gubernatoreyaasha waa in la dhimo marka waxaad moodaa maaragtay in maaragtay koox waliba ay danaheeda ilaashanayso ku-xigeenka madaxweynaha dalkan ayaa wuxuu yiri in bahabarata anigu ma ogolaan dooni ama raali kama ahan dooni ama kama qayb noqon dooni koox u ololeynayso in la isku daro maaragtay xuduudiyada u dhaxeeyo constituency-yaasha oo maaragtay xildhibaanada laga soo doorto ama in la isku daro maaragtay ismaamul goboleedyada marka waxaad moodaa maaragtay inay arrinta Raila Odinga dhinaciisa haddaad fiirisid isagana wuxuu rabaa ismaamul goboleedyada in la soo yareeyo soo gartay ma aad la isku soo jabiyo wax la yiraahdo three tier government ama dawlad oo saddex jaranjar leedahay waa in maaragtay la abaabulo inta badan baro arrimaha sharciyan weeyaan processkooda muddo dheer buu qaataa waxa laga yaabaa maanta xitaa hadii lagu heshiyo aftiha lagu hala sameeyo ila ma maaragtay su'aashaas la soo hagaajinayo oo maaragtay baarlamaanka la geenayo baarlamaanka uu codeynayo waxa weeyaan dabcan waxaad malaysaa inaysan arrin sahlan ahayn laakiin marka laga hadlaayo aftidan waayidii ugu dambeysay aad mooday in karka ay soo dhaafto aad mooday inay bislaanayso si fiican waxay ku soo aadaysaa xilli waxyaabo kala duwan ee Kenya ay ka soo baxayaan tirakoobkii bulshada shacabkan Kenya ayaa soo dhow adeegii huduma number ayaa la bilaabay diiwaangelintiisii oo hadda guud ahaanba meelihii kala duwanaa dalka laga diiwaangeliyay dad fara badan referendum baa la sheegayaa dabaysha siyaasadeed Kenya xagee bay u socotaa hadda kulay waa sidoo Raila hadalka u dhigay wuxuu yiri waa in la filo wax uu ku tilmaamay political tsunami isbedel runtan hadda u baahanteed barrow nin siyaasi magac ku leh dalkani aan runtii hadirtan munaasib ugu ahayn inaan magaciisa halkan ka sheego hadirtan artiyan ka sheego ayaa wuxuu igu yiri Cabdi Raila Odinga hadii uu madaxweynaha ka waayo
haddii uu madaxweynaha referendum ka waayo waa kuwii kala guuraa aad baad u mahadsan tahay gaarteena la socotaa weli RTN ayaa daawanaysaan sheekooyin kale ayaa inoo soo socda Kenya maalmihii ugu dambeeyaba waxaa sare u sii kacayay dadka iyaga weeraraya dadka kale oo nolosha wadaagaan si kale u dhigo dhadig iyo laboodku waayadan xaaladoodu ma sahlaneyn maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray labadii jacayl isku qaaday isfahmi waayay in ay birta iska aslayeen kuway isfahmi waaye ee guri wada joogana waa kuwii qudha iska gooya qaarkood arintani dad fara badan ayay walwal ku beertay wargeysaduna sheekooyinkaasi waxay noqdeen kuwo markastaahi ay wariyaan haddaba su-aashu waxay tahay jacaylkii naxariista iyo raaxada ahaa oo dad fara badan ay arki jireen iyadoo lagu dekeynayo nolol qurux badan maxaa keenay in qudha la iska jiro waa goor dhow oo aan dib u eegi doono sheeko nin xaaskiisa dilay isna ismarjiyay hase yeeshee farsamada ayaan idinkugu celinayaa goor dhow ayaan sheekadaas idin sheegi doonaa tahay hadda odayaal wali waxa la socotaan RTN waxaan daawanaysaan barnaamijka Horaarsan oo aynu ku faaqidi doono wararkii ugu dambeeyay dalkan Kenya wargeysyadii Kenya ayaan wali qaybihii ugu dambeeyay ku jira inagoo dhawaan aadi doona xaaladda siyaasadeed ee dhinaca diblomaasiyadda la xiriirta ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo iminka meel xasaasi ah maraysa hase yeeshee sidaan hore idinkugu sheegaba nin ayaa xaaskiisa qudha ka gooyay dalkan Kenya sidoo kale isagii ayaa marag ama isdaldalay oo xarig dhoonta gashtay arintan ayaa waxa ay walaac ku beertay boqolaal rayada oo ku nool gudaha dalkan Kenya wargeysada waaweyn ayaa wax ku qoraya oo qaarkood soo hadal qaadaya sababaha arrimahan ay u dhacaan in badan lamaanihii nolosha wacan ku dekeynayay erayada macaan isweydaarsanayay nolosha quruxda badan bilaabay deetana guri lagu nagaada sameeyay maxay tahay in gacantooda ay dunida isaga diraan iyagoo isku dilaya sidii cadow ceel ku gaamuray oo waaye israadinayay arintan lama yaqaan waxyaabaha sababay laakiin waxay noqotay mid Kenya ku soo noqonaysa bilooyinkii ugu dambeeyay sheekooyinkaasi dhiiladana waxay noqotay kuwo warbaahinta dalkan ay si weyn u soo hadal qaadaan Cabdi Axmed Cabdullaahi barrow waxaad muddo maaragtay arrintan inay toddobaadkiiba laba maal toddobaadkiiba saddex jeer waxaa laga yaabaa laba maalmood oo isdhaafa inaad maqashid laakiin kan haddartan wuxuu kaga duwan yahay kuwii kale nin oday buu ahaa oo maaragtay dhowr 20 sano ay wada joogeen xaaskiisa marka isaga wuxuu dhaafay waxa la yiraahdo suicide note yani qoraal oo maxaa sababay inaan maaragtay qudha iska qaado ama qudha iska jaro horta wuxuu yiri maamada la taliyay iyuu noqotay dictator bay noqotay beenaale noqotay ay la ima hambayn jirin oo maaragtay si walba la yacayn jiray laakiin wuxuu yiri haddana maaragtay wax allaale wixii aan anigu tabcado oo maaragtay aan dadaal la yimaado eeda afka u dhigan jirtay hay xagee bay jirtay ganacsi bay haysatay meel ay wax ka geyso
marka wuxuu yiri marna waxaan ka dareemay maaragtay gogol dhaaf iyo waxyaalo aan loo joogin laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale horta wuxuu qoraalkaas buu ka tagay ayuu ka tagay isla markaasna bar horta waxaad xasuusataa ama maaragtay warbixinta wargeyska sidoo qoraayo dadka maaragtay ka faaloodo dhimirka bini aadanka ay waxay leeyihiin arintan horta da'na ma laha waayo 20 years ayaa isdila kuwa 30 years waa markii depressionka loo yimaado marka wuxuu yirahdaa da' ma laha haba u badnaadaan dhalinyaro laakiin da' ma laha haddii aad fiirisidna bottom line-ka ama maaragtay wuxuu maaragtay wuxuu maaragtay hoosta kaga xariiqay in ay ku soo arorto laba shay dhaqaale iyo qofka maaragtay insaaniyadiisa markuu dareemo in yasma iyo in la yasaayo iyo in aan la qadareynin labadaas markay tahay ama dhaqaalahii uu la yimid in la burburiyo ama maaragtay la maroorsado iyo shakhsinimadiisa oo la qadariyo lagu xadgudub lagu sameeyo arrintan markii loo yimaado Kenya sida dadka ay uga hadlayaan way xanuun badan tahay oo qof nolol dhan oo qurux badneyd isna istilay qof kale noloshiisii la tagay si fiican kulay go'aan la qaadan karo lagu degdegi karo maaha laakiin tusaalaha nooca ay bixinaysa sheekooyinkan cabsi intee lag bay ku abuuraysaa bulshada cabsida ay bulshada ku abuurayso ayaa waxay tahay dadka intooda badan oo falalkan la yimaado markii dadka yaqiinay ama eheladooda lagu leeyahay war ninkan ka waran sidoo ah walaahi qof aad u degan oo maaragtay bashaash buu ahaa oo in bahaba yaraatay isma dhihin kumana soo toosin inuu xitaa maaragtay daqsin maaragtay uu wax u dhimi karo marka waxa taas ayaa waxay keenaysaa war dadkan loo arkayo inay khamarji yihiin oo indhaha guudan oo maaragtay ayaaba maaragtay ka fiican oo waxoogaa aan isdhihi kara maaragtay amaad kan marka waxaa weeye runtii cabsida ma yaro laakiin haddana waxaad moodaa barow inkastoo wargeysyada aysan soo qorin laakiin waxaad moodaa arrimaha noocan waxay ka dhacaan uun qowmiyadaha aan islaamka ahayn kulle cabdow dad Soomaali ah oo muslimiin ah oo isdaldalayana waa la arkay way dhacdaa marka waayaha ayaa sababayo qofka hadba waxana waa qadar taagan oo qofka haduu eebba u qadarin sidan uu dunida uga ahaado way dhacaysaa laakiin ilaahay baan ka baryaynaa in aanu nagu badin amaba guud ahaanba nagu joojiyaba waa tahay taas markaan intaas uga soo laabto Soomaaliya iyo Kenya ma fiicno xiriirkooda diblomaasiyadda wali waxba ku jira ma horta fiiri xaaladda kulay sidee noqon doonto ani waxaan aaminsanahay inay sii adkaanayso Soomaaliya maalinka ku xigo socdaalkii madaxweyne Farmaajo ee South Africa uu ku aaday socdaalkii madaxweyne Farmaajo oo South Africa ku aaday muxuu fariinaha diraad ma fariin waxa weeyaan in badan ayaa maaragtay la riixriixayo kow laakiin hadda waxaad moodaa maaragtay inaan xabadkayga dhigan karo madaxweyne Farmaajo dhahaysa may kulay ficilkaas waxay mutahay arrimaha diblomaasiyada waxa weeyaan waxyaabo badan markaad ku dhaqaaqdid sawirka guud ayuu ka turjumaya waayo maxaa ka fudud Nairobi Mogadishu Nairobi Johannesburg ama Mogadishu Nairobi Addis Ababa soo agartama waa Mogadishu Dar es Salaam waxa laga yaabaa inay noqoto Johannesburg ama Mogadishu Kampala Addis Ababa shirarkii ayaa xaggaas loo wareejiyay kole waxaan u maleynayaa maaragtay arrimaha diplomaticna markay yimaado meel hadda iga garaacad ana waxaan raadinayaa meel aan ka garaaco hadda jilibka ul eego dhafato waa ana kaaga dhaftaa marka labada dhinacba waa inay isu adkaystaan laakiin NGO fara badan baa degan Kenya shalay wasaaradda caafimaadka agaasimaheedii guud hadaynu ka soo gudubno warqad buu soo qoray ku socota dhowr hay'adood oo ku yiri shaqaalaha iyaga tababar iyo seminaaro iyo kulamo yeelan kartaan magaalada Nairobi waa inaad u wareejisaan Kigali Kampala Djibouti iyo Addis Ababa arrintan Kenya saameyn ma ku yeelanaysaa markaad eegto iyadoo waliba hay'ado fara badan ay dalkan deganayeen ama horta ma saameyn way ku yeelanaysaa laakiin hadda ma utahay fiiri barow ficil markaad sameynaysid arrin markaad ku dhaqaaqaysid horta waxaa lagu fikiraa
maxaa dhib iga soo gaari kara iyo maxaa dheef iga soo gaari kara marka labada dhinacba waa inay saas isu miisaamiyaan war anigu haddaan halkan ka garaaco ma laga yaabo dharbaaxa ka sii weyn inuu ii geysto marka waxaad moodaa arrintan horta waa unprecedented yani ma dhicin hadda yani waxaan dhihi karaa ma dhicin inta ay Soomaaliya ku jirtay maaragtay dagaalkan sokeeye oo 30 sano soo jiitama ay ku dhee marka waxaad moodaa arrin aad iyo aad ku cusub stage-ka diblomaasiyada inay tahay waxa laga yaabaa dad maaragtay ama shisheeye loo arki karo ama maaragtay interest gaar leh oo xitaa Soomaali kamid ah inay maaragtay arrintan si hurinayaan laakiin ilaa ma laga gaaro heer يعني labada dhinac ay dareemaan waryaa ninka dharbaaxadiisa aad bay u weyn tahay bal aniguna maxaa ugu jawaabi kara ilama ay taas soo baxdo ma dhihi karno saameynta ay ku yeelan doonto labada dhinac ilaa dartan ma saadalan karno waa tahay kulli dhaqaale fara badan baa labada dal isaga sidkan xuduud dheer bay leeyihiin aad iyo aad ammaanka labada dal waa in labada dhinacba ay wada ilaaliyaan ammaanka dalkan haddii la ilaaliyo kana waa inuu ka kala ilaaliyo waxaad moodaa in sinaba labada dal aysan marnaba u kala tegi karin haddii xiisadan diblomaasiyadeed labada dhinac ka dhaxaysa sidee baad oran kartaa halka uu ku jira markaad eegto sida dadka wax falanqeeya aragtida siyaasadda la dhiibayo iyadoo wargeysyada waydii ugu dambeeyana sheekooyinka dhaadheer waliba qaybta taxriirka ama faafreebka waxa qora lagu qoray waayidii dambe aragtidan lagu soo bandhigay maxaa horta fiiri xal sida lagu helo aad bay u adagtay sababtoo arrintu hadday maaragtay ku rib ay maaragtay ku dul wareeganayso arrimo ku saabsan dhaqaale aan yareen oo aad maaragtay oo aad u xoogan oo madaxweynaha Soomaaliya uu leeyahay in bahaba yaraatee wax maaragtay wadan ama maaragtay yani wax anaka lid nagu ah raali kama nahno maaragtay inaan ma aqbali kareyno waxaad moodaa way adkaani kartaa sidii labadan dhinac ay maaragtay ku heshiin lahaayeen ilama maaragtay saddex gees ay noqoto oo qof maaragtay dhexdhexaad ah inuu yimaado waryaar warsaan ma ahee qaboojiya wata nin kaliya saxafiyo shalay aan la hadlay oo wuxuu ii sheegay in waxa is haysta yihiin siyaasiyiin laakiin wuxuu yiri iyadoo la ogyahay Soomaaliya in aanay dhisnayn hay'adaheedii la dagaalanka musuqmaasuqa qofkii musuqmaasuq lagu arkana aan la aqoon ciqaabtii la mari lahaa in la xiro mooyaane Kenyana musuqmaasuqa oo xarka goostay dawladda ay leedahay maalin kasta musuqmaasuq baa la dagaalamaya haddii mid kamid ah maxkamaddu labadooda mid kamid ah uu xukunto dhulkan la isku haysto leeyahay kheyraad baa ka buuxa waliba shidaal haddii la soo saaro talo shacabku may soo gaaraysaa maxayna horta isku haysanaa ma horta waa arrin meesha ku jirto laakiin waxaad moodaa maaragtay in shacabka Kenyaanka aniga horta waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed siday u ogyihiin kheyraadka meesha ku jiro shacabka Kenyaanka inaysan u ogeen aniga horta saasaan aaminsanahay aragtidayda sababtoo shacabka Soomaaliyeed maxay u ogyihiin inta sana ay dagaalaha sokeeye ee socdeen ayaa kheyraadkeena la aruursada badeeni waa la marsaday kalluuma shisheeyaha meesha tuuna kalluunka la yiraahdo ku badan baa waa ogahay saasay ku ogaadeen inay kheyraad meesha ku jiraan laakiin kuwa Kenyaatiga intooda badan ma yani ilaa hadarta maaragtay si fiican ugama dhaadhacsano horta maxaan ummadan maxaan isku haysanaa سعقتها ما أنتم محيتاي لكن ده وحاول الصومالي ولا وحيد تري ورجروا عكاروه إيمان دونا بل هلا جو ورسوا محكمة عالمية لكن عبدي سؤال بتاعي ما سوق على عبنا يا مقطع مال كستا أو أفريقيا ما أنت وضن كنيجيريا كله أو قلبات كأفريقيا كويا وحاولي هاي الشغال aad u badan waliba dhaqaalaha wadankaas oo ku tirsan yahay leeyahay haddana ila kooban buu gacantooda galaa shacabkii way baahan yihiin ha magaalo madaxa Lagos koronto fiican ma laha ilaa yoomuna hada meelaha intooda ban generator laga isticmaalaa laakiin shidaalkan hadda la isku haysto armoog sidaas oo kala noqdaaba wali su'aasha meesha taagan barrow arrin aad iyo aad cajiib ah hada waxaan xasuustaa hadda ka hor sanada 2004 anoo idaacad raadiyo joogo ayaa waxaan wareysanayay nin markaas ahaa wasiirka arrimaha dibadda Kenya Bonaya Godana oo wuxuu ka soo gali jiray North Horr dhinacan Marsabit iyo dhulkan markaas shidaal baa lagu sheegay wallahi wuxuu yiri Cabdi waxaan Ilaahay ka baryayaa dhulkan aniga ka soo jeedo in shidaal laga helin
markaasaan ku xiray maxaa war ederan iska dhigi doona marka axsan anaga maqlaado aad iyo aad waasantahay cabdi axmed cabdullaahi khiyaartayna daawanaysa intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkii howraarsan oo si toosa uga daawanayseen telefishinka RTN stuudiyaha dhexe ee magaalada Nairobi aad baan ugu mahad celinayaa Cukaashe Sheekh Maxamed oo isku dabaridka barnaamijkan iyo soo saaristiisa lahaa waxaan sidoo kale leeyahay mahad iga gaadho dhinaca farsamada Cabdiraxmaan Atoore iyo sidoo kale Mahad Yuusuf oo gacan iga siiyay kaamirooyinka ayaan sidoo kale leeyahay waad ku mahadsantihiin hawsha wanaagsaneed aad qabateen Paul iyo Safari Cabdicasiis Barro iyo Cabdi Axmed Cabdullaahi ayaa barnaamijka idin sheegay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay waa 10kii dambe Ramadaan wanaagsan